السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا ومدى الصومالي ميل كستبا دافيه إذا جوكتين ونقو عدنان. سو دوادا إن شاء الله. هرتو مركا وريس إن شاء الله حقا تعسوح عن قدريا وحالي راها ومدى الصومالي وحالي راها كوكيروتي وحالي راها حمر مانتا لبدي قرح يكون عي مركا وحالي راها إلهي وحالي راها هاونا حريستو بان لينهاي إلهي هاونا حريستو وحالي راها طبعا ووح لغا حماضو مالين كستبا وحالي راها وحالي راها قف دد للدليو دلنير بابا ايسا عرور يرو وحالي راها قرح وحالي راها waa laga qaban karaa waxaa la yiraahdaa Axmed Jaamac waa laga qaban karaa waan ka qaado waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan waxaa la yiraahdaa Burhaan insha Allah waxaan jecelahay tala sheereeyo ana maanta waxaan soo galay waxaa la yiraahdaa maaha uun intaan xaqan iska calaacalno iska oyno waxaa la yiraahdaa inaan markastaba aan raahno waxaa la yiraahdaa dawlad ba asaasa iyo asaas anigu waxaan jecelahay wixii xal ah oo anigu shakhsi ahaan aan u arko waxaa la yiraahdaa wadankan Soomaaliya ina soo gudbiyo waxa weeyaan wadankeena maanta waa la ogyahay Soomaaliya idil meel kastaba ahaato mid kastaba dhibaato leedahay mid baa dhibaato qarax leh mid baa waxa la yiraahdaa kursi ay ku badan tahay mid baa waxa la yiraahdaa qabyaalad ay ku badan tahay waxa la yiraahdaa dhalinyar tahriibaysa waxa la yiraahdaa gabdho la kufsanayo waxa la yiraahdaa dhalinyar jaamacadaha ka soo baxay oo wax la oo waxa la yiraahdaa iqaad oo waxa la yiraahdaa waan ka qaado waxa la yiraahdaa damo waxa la yiraahdaa xarbi sucaad farol soo dhawo waan ka qaado insha Allah marka inaka mushkilada taalo waxa weeyaan inaka Soomaaliina haysata inaku waan ka damqanaa waxa la yiraahdaa dhibaatada haysata laakiin shacabku amba inaka ma kan nahay dad waxa la yiraahdaa Soomaali ah ma eegni inaku bal dawladda waxaan ku caawin karnaa amba maamulkan aan deganahay waxaan xal u soo gudbin karaa oo fikrado u soo gudbin karaa maanta Soomaaliya waxa ka maqan asaasan oo rasmi ah ka maqan waxa weeyaan dad fikir wanaagsan leh waayo fikirka maanta inaka xaqayna dhigay waa qabyaalad waan ognahay waxa la yiraahdaa waa la ogyahay qabyaaladu waxa la yiraahdaa dhibaatada leedahay waxa la yiraahdaa rasuulka waxa la yiraahdaa alayhi salaatu wasalaam waxa la yiraahdaa marin jar ka hadlay oo ka waaniyay ummadda islaamka intay qabyaalada ka durkaan waayo qabyaaladu dhibaato weyn bay leedahay maanta waxayna haysataa qabyaalad bay ku buloomatay qabyaalad ma ku sii socotaa ilaa ay maanta xagaas ay sii maraysaa caruurteena baa dhimanaya gabdhaheena baa la kufsanayaa waxa la yiraahdaa dhaqaalaheena baa waxa la yiraahdaa qaad buu noqday inaan ku bedelano wax mukhadaraad drooga ah inaan waxa la yiraahdaa nolosheeni aan ku bedelano aan ka doorano caafimaadkeeni iyo caqligeeni inaan drooga cunno 24 saacadood yani xaqan ku fikir lahayn sidaan xal u helnaa sidaan dhaqaalo yeelanaa sidaan wadanka u dhisanaa ma fahantii waxa la yiraahdaa waxa la yaabaa dadkan caayaya يا ابو حمزه اسماعيل انت اللي بلا شرف الله يخليك ما قرأتك marka hadda ida ma cajaba kalaami bimkaanak meeshaadi ku noqotid luqa ku noqotid haddana hadalkayga u baahnayn waayo anigu ummad Soomaali ma la hadlayaa waxaan ma leeyahay xabishi baa tahay amba meelahaas ka timi asligaaga ma la yaqaano marka inta ku jawaabo waa qalad filankii baa iga saartay على العموم waxa weeyaan waata waxyaabaha qabyaalada weeyaan nin anigu waas ka hadlaya qabiil ma ka hadlin waxa la yiraahdaa cid man caayin waxa la yiraahdaa adi wali ma naflagaadeen wala saka caaya wala saka maagaya qofka wanaaga raba hadaa wanaag rabtid shacabka Soomaali ku diin ma inta wanaag ka hadishay waa inuu waxa la yiraahdaa baalaha ka rafa waa ina la saka caaya waxyaabaha dhibaatooyinka ay qabyaalada iyo qurunku xaqana dhigay bacaan buska qaadanaya calan aan wax soo kordhinayn madaxweyne aan wax soo kordhinayn waxa la yiraahdaa nin aan wax u hayn nin 4 sano ku shaqaysanaya
dhaqaala ka samaysanaya ku dul samaysanaya markuu 4 sanadood dhamaysana iska dhaqaaqaya caruurtiisii waxaa la yidhaha xoolihii soomaaliya ku korinaya ma fahamtay marka waxa weeyaan waxyaabahaas ayna haystaa waxyaabahaas ayaa xaqiiqatayna haysataa yacni qabyaaladii iyo qurunkii xaggaasuu nala gaaray waa laska kacaaya only just waxaaba haride haddaaba fikrad soo gudbinayso laska kacaayo marka almuhim sheekadeeda wato anigu waxaan u joojin maayo baacoodka dubaab waxaa la yidhahaa electroni baan u maleeya waa qoladan lacagta la siiyay la yidhaha soomaalida caycay oo af carabi ku cay oo waxaa la yidhaha soomaali kala saar oo calan somaliland iyo dadka isku dhex jira iyo war soomaali weligaa isku diri kari maysid 10 calan saaro soomaali waa soomaali waa shacab isjecel waxaa ka shaqeynaya waxa weeyaan waa dad najisiin ah oo siyaasiyiin ah ayaa ummadda soomaali isku diraysa iyagaa ka daba shaqeynaya waayo wax nin kasta wuxuu doonayaa intuu qabiilkiisu uu isagu ninkaa hadda waxa moo hayo shilin ma siinayo hadduu berito dhaqaaqana ma garanayo waanu iska teegaaraya wuxuu ku teegaarayaa bas waa qabiilkayga waa jilbkayga waa inadeerkay inadeerkaa qabrina kuu raaci maayo nololna ma kuu hayo hadduu nolol kuu hayo ilmaadeerada dhan ba maalin kastaba tahriiba badda ku dhinta waxaa haysaa you don't have anything cali العموم aniga sheekadeeda iga saarina anigu maanta waxaan soo galay xaggan anigu xal baan u arkaa xamar maalin kasta qarax baa ku dhaca markaasaa lagu soo wacaya waxaa la yidhaahaa markaasaa lagu soo wacaya marka laafka soo geshid baa lagu soo wacaya marka laafka soo geshid unbaa lagu soo wacayaa yoo lagu waalayaa maanta o dhan xaggaasaan fadhiyey hal qof oo telefooni soo wacaya ma jirin xataa message qofkii soo diray ma jirin life ma soo gashay indhaha baa la iska tiraya waa lagu soo wacaya cala alcumuum sheekada anigu aan wato anigu xal waan u arkaa xamar xal bay leedahay kufsigan iyo waxyaabahan ka socdana xal buu leeyahay waxaana adduunka xal aanan lahayn adduunka ma jiro haddaana adigu caqliga aanu nadiif ahayn dee waxba samayn kari maysid hadduu caqligaagu qabyaalad iyo qurun aa lagu soo koriyey iyo aniga landheera iyo aniga asaasa iyo aniga adigoo xoola ah dhibaatadeeda leedahay calaykum salaam cabdisalaam soo dhowow marka xalkan anigu arka xamar siduu dagaalkan uga joogsado horta xamar waa la ogyahay haddii hagaagto soomaaliya dhow isku soo noqonaysaa iminka ayaamihii dhawad waa daawanayseen maantidaasay ahayd mise shalay bay ahayd markii la lahaa meel ciidanka militariga soomaaliya maanta qoladii amisom way ka baxaysay dowladda soomaaliya u dhiibaysay dhalinyarta soomaali ee ciidanka militariga soomaali baa loo dhiibiyey dabcan hadday amisom ka baxdo dowladaha nin kasta wuxuu qaadan jiray $1,500 buu qaadan jiray bishii waxaa la yidhahaa waddankiisa fasax buu tegi jiray waxaa la yidhaahaa hadduu wax sameynayo waxaa la yidhaahaa hadduu doonayo xataa yani dumarka soomaali bay qaar gabsan jireen qaar waxaa la yidhaahaa shacabka soomaali bay ka qaadi jireen baad ka qaadi jireen waxyaabahaas o dhan waa lala socdaa taa ay u dheer tahay lacagta ay qaadan jireen dadkan waxaa la yidhaahaa amison ka shaqeeya oo ilaa maantana dee dad soomaalida baad bay ka qaataan meelahay ay ilaaliyaan 1,500 waa u dheer tahay maximum anigu saan anigu maqlay de anigu ma hubi laakiin sidaa anigu aan ka maqlay waxaa la yidhaha $1,500 baa bishii la siiyaa $1,500 waxaa la yidhaha ninka ciidanka ee militariga soomaaliga $100 buu qaataa maanta hadduu ninkii ciidanka soomaaliga uu qabsanayay lacag badan baa meesha soo haraysa dhaqaalihii United Nation amba dowladaha ay bixinayeen waxaa la yidhaha maanta ciidanka soomaaliya usoo noqonaya dhalinyar badan oo ayaa shaqo helaysa oo waxaa la yidhaahaa shaqo usoo kordhaysa markay shaqo soo kordhiso macnaha nabadii baa bloobmaysa markay nabadu noolnooto waxa weeyaan hadha tolana qayb badan baa ka baxaysa oo ciidamadan amison ka baxaysa anigu waxaan aaminsanahay amison iyo xarakadan shabaab la yidhaahaa waa dad isla shaqeeya waa dad waxaa la yidhaha waayo hadday xarakadan shabaab ay daacad ay ka tahay ay leedahay soomaaliya ayaan doonayaa cadow inta ka saaro waa ka maanta cadowgii ay sheegayeen amison waa ka baxaya waxay soomaaliya maanta xamar waxaa loo qarxinaya xamar waxaa loo qarxinayaa waa labada sabab waa loo qarxinayaa sababka koowaad waxa weeyaan haddii xamar ay hagaagto soomaaliya dhow waa isku soo noqonaysaa waayo meesha dhaqaalaho ay taallo soomaaliya
boqolkiiba 99 waa xamar. goboladan kale yaala waa mid kalluun haysta iyo mid geel yar haysta, laakiin meesha petroolku yaalo, khayraadku yaalo, nimcadu taalo, wax kastaba taalo waa dhinaca waxa la yiraahdaa koonfur weeyaan. hadday koonfurku keligii hadday maanta مثلا muqdisho sida imka boosaaso iyo hargeysa ay tiraahdo anigu maamul baan ahay, dowlad barac bitaaganahay, way dhargayaan, dhaqaale ka dhargayaan, waayo badii bay haystaan, waxay haystaan waxa la yiraahdaa waxay haystaan beerihii bay haystaan, waxa la yiraahdaa waxay haystaan petrol bay haystaan, waxyaabo badan bay haystaan. marka xamar haddii hagaagto xamar iyadoo dhaawaca ayaa weliba dhaqaale laga qaata, maamulada laga siiyaa. hadda waa xamar waa meel maalin kasta qarax ka dhaco, iyadoo maalin kastaba qarax ka dhacona maamulka Puntland, maamulka Somaliland, maamulada kale dhaqaalaha adduunka la siiyo dhan xaggaas lagu qaybiyaa. ka waran maanta dowladdaas amba waxa la yiraahdaa maamulka xamar oo waxa la yiraahdaa maanta maamul noqday, iyagu isku fulan yihiin sida imka Somaliland iyo Puntland ay yiraahdaan waa go'ayna. wallahi inta kale iyaga qasab ku soo noqonaya, waayo xamar nin kastaba taajir buu noqonaya, taajir dahab baa saa u dhex yaal u buuxa. qodobka labaad ay nabadu aana loo diisay nabadu intay ay timaado waxa weeyaan waxa la yiraahdaa qabiilka degan waxa la yiraahdaa ugu badan yihiin dadka ugu badan xamar ugu badan waa dad wanaagsan, waa dad fiican, waa dad islaamka maasha Allah ku wanaagsan. waxa la yiraahdaa haddii dowlad ay noqoto waxa la yiraahdaa dhaliirtiisa meel heer sare bay gaaraysaa. waa dad Soomaalinimadana jecel ay ka go'an tahay, iyagoo 30 sanadood wadankooda qaraxu ahaa ayay ilaa maantadaana Soomaali weyn ay taageerayeen. iyagoo waxa la yiraahdaa dadka degan xamar, iyagoo waxa la yiraahdaa maalin kasta la qarxinayo ayay intaasoo Soomaali gobol kastaba ka timaado ayaa dowlad laga sameeyay dhexdooda, aana iyaga laftoodii waxba loo ogoleen intii khayraadkooda ka faa'iidaan, intii waxyaabo badan ka faa'iidaan. okay innaka waxaan rabnaa haddaba inaan soo celino sidee xamar uga baxaysaa arrintaas. anigu waxa ka hadlaya wallahi xayaadi baan ka hadlaya, anigu ana colaad ula jeegin waxba ula jeedin. maanta Puntland waa dowlad dhisan, waa caasimad dhisan, waxa la yiraahdaa dhinaca galmudug iyo jubbana iyo waxa la yiraahdaa jubbana iyaduna waa dowlad dhisan. waxaa diiday waxa la yiraahdaa caasimada waxa la yiraahdaa Soomaaliya inta laga rabo. sababta anigu leenamkan la yaabsanahay war meesha hadduu qarax ka socdo, meeshan hadda nabad loo diiday, maamulka imka Puntland dee adar qabiil baa meeshii samaystay, dhaqaalo samaystay, ciidan buu samaystay, calan buu samaystay. waxa la yiraahdaa Jubbaland calan bay samaysatay, maamul bay samaysatay, ciidan bay samaysatay. waxa la yiraahdaa Somaliland calan bay samaysatay, waxa la yiraahdaa madaxweyne samaysatay, film bay samaysatay. waxaasay ku digeen, waayo ninku markuu isagu xaafadiisa leeyahay uu isagu controlayo dadka uu kala garanaya. laakiin maanta markuu aniga nin xukumaya uu yahay nin aana wadankanba deganeyn, dhulkanba aana deganeyn, aana xamarba aana waxa la yiraahdaa bas uu u yimaado inuu madax ka noqdo oo qabiilkiisii amba turkiisii soo doortay matalayo, amba waxa la yiraahdaa uu yahay madaxweyne 4 sano iska fadhiyo Mareykanka ka imanaya aana warka ogeyn, amba wasiir baasaboor Yurub haysto qaxooti ku ahaa Yurub taasoo meesha iska imanaya. waxa weeyaan meeshii cidna garan maayaan sidee u control karaan. xamar waxa control kara dadka u dhashay, dadka u dhashay ayaa controlaya. marka anigu waxaan leeyahay sida Soomaalida kale waxa la yiraahdaa sida Soomaalida kale maamuladooda u dhisteen, calaamadooda u samaysteen, nabad ay u samaysteen, waxaa challenge loo siin waayay xamar ina caasimada laga soo raro oo qabiilka markaa dega iyo qabiilada isla dega inay isgacan qabtaan ay xamar isku wada dhistaan. waxaa diiday, waxaa ninka waqooyigu u imanaya xamar oo baaba ah oo waxa la yiraahdaa wasiir uga noqonaya uu leeyahay waa caasimadii Soomaaliya. wuxuu kii Puntland aba ma jirtan xagga uga imanaya oo xamar imanaya oranaya waxa la yiraahdaa waa caasimadii Soomaaliya. waxa la yiraahdaa niman shisheeye oo dhan ayaa caasimadii haysta. nimankii dadkii deganaa Chance iyo Power ma ku laha. waxa la leeyahay xamar waa Soomaaliya dhab u dhaxaysa.
وقلت كوجوين أنا وأنا أركو ورمادا ما أنت على الصومالي من الدونيو دي هذا الصومالي ما دي ما أنت حمر وكلية مكو حنا عاصمة ولا ركرة مدحوينها قرقيس ولا ركرة وحلقين كرا بوتلان بلقين كرا وحلقين كرا وحلقين meesha kismaayo la geen karaa meelaha nabad ay ka jirto oo ciidamo dhisan leh oo nabad ay ka jirto oo waxa la yiraahdaa maanta hadduu nin ajnabi soo galo amba qabiilada kale soo galo la garanayo la isweydiinayo imanka nin reer Soomaaliyeed baan ahay ma garatay wiilgii muddo dheer bay ugu dambeysay maanta anigu hadda Soomaaliland dego de waxa la oranay wiilka yaa dhalay yuu yahay aabihii waayo in adeerkii waayo wala soo baaraya ninkan ma yahay nin fiican ninkan ma yahay nin xun wala garanaya waxaan qaban karo iyo waxaan qaban karin hino albaabka markaas ugu soo gashid wala garanaya yaa tahay laakiin xamar yaa garanaya xamar maanta yaa garanaya cid kasta way ku nooshahay cid kasta way ku nooshahay marka xamar anigu fikradaana sanado ka hor ayaan soo jeediyay waxa la yiraahaa oo meelaha mala 4 sano ka hor waxa xamar hadda la doonayo inay hagaagto Soomaaliya hagaagto xamar caasimada laga raro daruuri maaha shay muqaddas maaha waxa shacab dhan maalin kasta loo dilaya qabiil dhan ba meesha ku baabay hal qabiil ba meesha ku baabay amba laba qabiil ba ku baabay waa inta digta xamar waa dhamaadeen ba min 30 sanadood maalin kasta lagu qarxinay marka hore dagaalo sokoya bay haayeen markii dambena waxa la yiraahaa imka maalin kasta qarax baa loo leeyahay caruur yaro jaamacada ka soo baxay caruur yaro waxa la yiraahdaa Soomaalinimadooda jecel ayaa maalin kasta la qarxinaya dhalinyaro muslimiin ah oo shahaadanaya ashhadu la ilaha illa allah ayaa la qarxinaya dawladii waxay ka qaban kartaa ma jirto okay madaxweynaha farmaajo wuxuu maanta isaga madaxweyne go'aan rasmi u gaar way oran way war cabdi wali gaas aba diiniyo caasimada waxa ka dhiganaa baashi waxa ka dhiganaa caasimada waxa ka dhiganaa magaceed اللهم صل على النبي عاصمة waxaan ka dhiganaa waxa la yiraahdaa Boosaaso laakiin ma la rabo film baa la rabaa masaakiinta baabiya la rabaa magac Soomaaliya inta uu hoos u noqdo baa la rabaa dawladda sheeba cadowno ah hadii waxaadi anigu isweydiiyay sababtu waxay tahay xamaro baab alle waa caasimad oo waxa la yiraahdaa Puntland oo caasimadeedu barwaaqo ay tahay oo nuurayso oo waxa la yiraahdaa ciidan leh oo ma sha Allah waxa diinta loo rabo hargeysa waxa diinta loo rabo ila waa ku wasiir ku leh anaga filin loo wadaan waan go'aynaa ma toban wasiir ba ku jira iyo madaxweynayaal ba ku jira adduun ba ku jira xukuumadda federaalka xagga la soo taageen Soomaaliland waa muqaddas ma laga dhigo ma la heshiyo caasimadda hargeysa laga dhigo muuga talaazulo uu yiraahdo musabixiyo Soomaaliland ba ku dhiibaya kala qabo caasimadda hargeysa nooga dhigo ma la rabo nin kasta qabiil kasta oo qabiiladaasi ma doonayaan wadankooda tiqasan ma doonayaan wadankooda ay dhisteen amba bislaha ku dhisteen intay baabiyaan waxay rabaan in xamar intay hoos ahaato marka anigu waxaan oran lahaa anigu madaxweynaha ayaan fariin u dirayaa iyo dadkan aqliga leh waxa weeyaan adeerayaal xamar rajo weyn ma ka jirto xamar waa khad cas jawhar baa jirta nin baa xagan soo qoray waa ka haloor waa ka xamdi Soomaali soo dhow waa runta jawhar haloor waxa diiday waa fikrad ilan meeshii maalin kasta qarax baa taagane waa inuu qabiilkii lahaa meesha ama dadkii deganaa meesha ay controlaan ay gartaan ka soo baxaya iyo ka soo galaya waa in marka nabadda si fiican loo dhiso ayaa markaa Soomaali soo iman kartaa laakiin caasimadda dhameed maalin kasta qarax ku jira wallahi xaqiiqa ma ka hadlaya hadda Soomaalinimo la rabo Soomaalinimada xamar kuma imanayso Soomaalinimada waxay ku imanaysaa meesha nabadda ah inay caasimadii noqoto meesha dawladuhu inay ku imanaysaa waa inay meel qurxoon noqotaa meesha waxa la yiraahdaa adduunka doonaysa hadda inuu caawiyo waa inay noqotaa waxa la yiraahdaa adduunka dawlado badan oo adduunka ayaa caasimadii bedelay daruuri caasimadu ma anigu Soomaalida la yaaba qaar ba koolay calanku waa muqaddas caasimadu waa muqaddas Soomaalinimadu waa muqaddas war adeer wax muqaddas ma jirto waxa jirta dan baa muqaddasa dan ayaa muqaddasa dantaydu waxay tahay
maanta anigu Soomaali baan ahay dowlad qarax badan maalin kasta la isku qarxinayo masaakiin maalin kasta la cadaabayo tacliin fiican ana ku haysan nolol fiican ana ku haysan ayay leeyahay caasimadii bay tahay nimankii nabadda ahaana ma garatay waxay ku leeyihiin waxaan ku siinaynaa konton kun amba waxaa la yidhahaa 20 kun baan ku siinaynaa amba 5 kun oo ciidan baan kasoo aroranaynaa 5 kun oo waxaa la yidhahaa Puntland ah 5 kun oo waxaa la yidhahaa bahashiya war ciidamadiina oo dhan soo raro xamarkeena hadday daacad inaga tahay Soomaalinimadu hadday doonayso Soomaalinimadu labada xal baa lagu gaaraya yaa ama xamar meesha laga raro yaa ama ciidanka Puntland iyo ciidanka waxaa la yidhahaa magaceed Allahumma salli ala nabi Galmudug iyo Jubbaland iyo tobanka maamul waa ina keenaan ciidanadooda dhan ay soo dhigaan xamar gudaheeda hadii doonayaan waa la control karaa 6 bilood amba 7 bilood oo nabadeeda la adkeeyo ka sii baxaya ka soo baxaya oo ciidamadaas oo dhan isku yimaadaan deemeeshii nabad way dhismaysaa laakiin dadkan federaalka qalad bay ka fahmeen federaalka waxay moodeen meel kastaba afartiisa askari amba afartiisa ciidan intuu haysto awana sadaqad baan kugu siinaya waxaas ma soconayso waxaasi wax soconaya ma aha anigu xaqiiq ma ka hadlaya daacadnimo hadda Soomaalinimo la rabo caasimadii ku jirta sharafteena caasimadii ku jirta magaceena iyo wax kasta wuxuu ku jira waa caasimadii maamuladina waa nabad caasimadina waa hoogay waa dhibaato weeyaan marka inaka waxay ku xiran tahay dadka marka aqoonta leh war daruuri ma aha anigu ku soconaya mar labaad iyo mar saddexaad intii caasimadu xamar noqoto hadana ciidanka maamuladu dhan xaga la dhigay qaar oo kale maamuladu waxay isku difaacayaan war ma qabiilada joogadi adeer dhalinyarta kala qorta shaqo siiya waxa adigu 10 kun iyo 4 kun ugu xiraysaa waa gorow ka dhiga waa ka Saciid anigu waa walaa raadi anu ma diisani gorow waxa laga dhigo boosaase ha laga dhigo waxa la yiraahdaa war khaatimo buu hood laha laga dhigo buu hood laba nabad fiican ba haysata khaatimo sida laga dhigo marka waxa weeyaan xaqiiqada la isku sheego madaxdan anigu waxa la yaabsanahay waxa ku leeyahay professor baan nahay PhD baan nahay sanaa adduuniya bakh jacket ma lagu soo xiranaya xalna keeni maayaan xalku waxa weeyaan meesha nabad hadaanay jirin ha laga raro hada calanka Soomaalinimo la rabo calanka daruuri maaha waa calan cusub la samaysan karaa nolol cusub la samaysan karaa live hatta magaca Soomaali labkiisa wala bedeli karaa hadii uma doonayso xal ma aanu tan wax ku adkaysto ma aanu inaa wax iga dhigto aniga wax iga dhigaya faa'iideyso kordhin maayo waa inaan hoos yar diga oo talabaadkayga hoos yar digta si aan anigu nabad u helo nolol fiican u helo aan ummadahan aan heshiisiyo aan ummadahan isku keeno laakiin hadda anigu soo taagnaado xamar waa muqaddas calanka Soomaaliya waa muqaddas madaxweynaha waa muqaddas kan waa muqaddas dadunku waxay noqonaysaa faasuliye iyo fuul bay noqonaysaa faasuliye fuul ma taqaan faasuliye ma taqaaniin bariis baas noqonaysaa sheekadu talabaad waa su'aal isweydiin leh dhalinyartan sheeganaysa shabaab okay waxay awal ku doodi jireen meesha gaala joogta gaaladu waa tan ka baxaysay waxay ciidanka iyagu isku soo qori waayeen taas waxay ku cadeynaysaa in dawladaha shisheeye maanta in la wayna caawinayna inay ka soo horjeedaan bit Soomaaliya isku soo noqoto waayo dhalinyartan shabaabka waa dhalinyar la soo abaabulay inay Soomaali ay xasuuqdo inay Soomaali aan horumar aanay gaarin in waxa la yiraahdaa albaabka soo laga xiro ninka doonaya intuu gaal la dagaalamo gaalnimo sheegayo adeer wadanada gaalada waa la yaqaana wadanada gaalada waa la yaqaana meesha gaaladu ay joogto oo ugu tag miskiin maamo yar oo waxa la yiraahdaa maanta dhawey 9 gabdhood xamar lagu dilay gudaheed iyagoo subaxdii dhulkoodii ka shaqaysanaya arsaaqad doonanaya ayaa xagga laga joogtay sababta loogu joogto waa maxay magaalaba ma yahuudba waxay sameeyeen maamooyin carruurtooda u shaqaysanaya raggii aan haysan ayaa la iska dilay rag aan haysan ayaa la iska dilay sagaal dumar waa laga tagay raggii
سجال أنت شارع على سوق في الساحة بتحب حاجة على الغرفة قرح بك هالسين يا دوك هالسين يعني حتى كيش قدوا أنت والد لي شباب كانوا ما حيوحيين واحد يقول لي شباب بدري يجي بإيران كدني أوكي إيش الحل مركا حالك وحويان هذا حمر رقبة ولا شيء ضد با ولا شيء ضد با اسكاله عاصمتها laga raro iyagu asugan nabadoodii iyo noloshooda asugan faraha looga qaado dekada yar xamar ku taala bay doonayaan nimankan waxa la yiraahdaa Puntland iyo waxa la yiraahdaa Jubaland iyo Ireland kaasi inay caashur ka qaataan lacagta yar xamar soo galeysay bay doonayaan cunaan iyagoo dhulkii iibinaya iyagoo meel kasta mashruuc ka samaysanaya dhulkoodina way dhisanayaan xamarna waxay leeyihiin waa qasab waxaan ugu soo waa federaali waxa loo dulmaya dadkan xamar degan waxa loo dulmaya dhaqaalooda waxa loogu dulmaya xoolahooda waxa loogu dulmaya xoolahooda xoog waxa looga qaadaya waayo wuxuu xamar ugu dalnaya nin aan u dhalan leesh wuxuu waxa la yiraahdaa wallahi xaqiiqa baan ka hadlay runta la isku sheego Soomaaliyeed dulub baan ku haynaa dadkan hada doonaysiin Soomaali weyn iyo filmaan rag aaminsan adeer caasimada kararo gobolkaaga amba maamulkaaga amba caasimadaada ka dhig ragana hays dhisaan oo ninka soo galay ninka soo baxaya ha qabtaan ha xasuuqaan ilan Puntland saasa ku timi Soomaaliland saasa ku timi nabadan maanta aan ku joogno mesela Burcay Hargeysa waxay ku timi toodayaasheedii baa la isku keenay ninka sabadkiisu masuulkiya salaadin baa loo simi agaasimaa waxa loo simi ogaashan loo simi ninka sabab maanta anigu haddaan wax ka sabab geysto toodaygii baa loo yeeray loona takaalina kana qabo laakiin xamar yaa qabanaya waxaan yareeyaa dadka isku qarxinaya maalinka sabab carruurti baabinaysa islaamiyi baabinaysa dumarkii tooganaysa carruurti tooganaysa cid ka sabab dilaysa yaa qabanaya waxaan leeyahay waa caasimadii waxaan leeyahay waa caasimadii waxaan leeyahay waa caasimadii waa jariima damiir ma lihidin damiir ma lihidin marka waxa weeyaan adeer farmaajo adeer waxa la yiraahdaa madaxweyne ma waxa u tahay uun xasuuqa waxa la yiraahdaa xamar miyana ahaan adigu ninkii aqoonta lahaa ninkii maanta u talin lahaa miyana ahaan ninkii dhibaatada ka saar lahaa masaakiinta maalinka saagtaada lagu dilayo lagu qarxinayo qabiil dhan baa lagu xasuuqayaa niyo maanta anigu waxaan aaminsanahay hawiye ma 500 ma dhaafo si maalinka soo loo qarxinayay anu hawiye ma yihi laakiin waan ka damqanaya carruurtoodii dumarkoodii maalinka soo la xasuuqaya maanta haddaan la xisaabay dadkii dhulkooda deganaa dadkii dibadda ka yimi dadkii dhulkooda deganaa waa yirihiin maanta waa xaafada yiri digii waxa keenay Soomaalnimo iyo caalan Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya war madaxweynaha Soomaaliya waa lagu hor qarxinay carruurtii dumarkii baa lagu hor dilaya markaasuu waliba ka dhigaya ninka amniga u haya basketball man kubad ciyaari imisa jira general oo Soomaaliya joogo oo shaqadiisu ay tahay nabad sugid iyo amni ay tahay ma dhici karta maanta anigu inaan waxa la yiraahdaa aan ka dhigo waxa la yiraahdaa basketball nin basketball ka ciyaara xagaa laga dhigay wuxuu garanayaa ma wantu la ciyaaraya baashi magaceed xarakada shabaab iyo misa box ku dhufo xaqiiqa waa inaan la isku sheegaa xaqiiqa la isku sheego waa inaa shaqadan nabad sugida nin ciidanka ku jira weligii loo dhiiba برجيسيات برا حتى تذكي هانشي وين لودي وين من كاس نك شقدي سوانا نك سوي شقدي سلودي با أنا شقدي ساهين وحو سمي كرا ما عندك سمراي بيقول شيء شاكيت بيقول شيء إيش في قبيل كيس I don't care وحو هذا قبيلة ضيرين رب قبيلة صراحة
laakiin xaqiiqa ka hadlaya waa nin basketball ciyaaro nabadu maanta u hayaa Soomaali waxay tahay xamar wuxuu hayaa ma kumeelga ma ciidanka waxa la yiraahdaa Soomaaliya ma basketball ciyaaraya waxaana runta la isku sheegay haddana runta la isku sheegin waxa la yiraahdaa wax soconaya ma jirto madaxweynaha Farmaajo hadduu doonayo intuu sii fadhiyo meeshan adeer war caasimadda meesha karar garowa ka dhig meesha kale imka la sheegay ka dhig Soomaaliya way badan tahay intaasoo magaalooyin baa caasimad ka maanta oo nabad ka jirta laakiin rag waa nafisaan ayara nafisaan shوية laba cisho qaraxa ka raysaan xaqa bal meesha caasimada kale laga sameeyo bal laga qabto والله العظيم وقصل عيل قصل بكاليرا والله نفسان ما أرتقف نفسه ما أنت قفك هدول لبيت 8 ساعات شغالينيو دي هدول وحلي 4 ساعات أو فرسيحة أو ويرنستو أو يرقبيستو وحنا على سياتشانس لكن مال 4 ساعات شو تاجنتهي ودباته والله وكان حي والله ما لك السبب قرح واللي واحد كان حي كسي نحي تنكسي هوريسي سجال قبلوضه الصباح يسوق الهايو أرزاقات دولنيا أي ماذا حالك توبتي عدك هذا شيء ما المقلن مدحوينك كرالي قريه ما المقلن وحا كل جهد لي وقبلي بوت لا كل متى لو كفصلي سمع ما نبي هوريسي قد يدن قبلها سجال قبلوضه القدري وحلي الحمر ميا مقشن عب سوق قادم ميا مقشن عد سوق قاضي ميا مقشن هيئات كهذا شباب التلفزيون كهذا وريرو BBC تلقى سوداي وح كلام يا لقى مقلن ما لقى مقلن سوي ممكن يعني خلاص حمر ورود انتين وروا ما انت مسابتي كنتم بالين ور الله يرحم الله ونحرسته إلهي ونحرسته الله وابا يعني عادي إمك هذا اللي راهو سومال نبى فرد شوي إلهيو هورن كيبل بسوقرية إلهيو أيه سوقرية إلهيو عالم بسوقرية هذا اللي راهو باشي والله العظيم حقيقة ما قالت ذلك قوة أنا ما أنقص صدح بقول بكل مريان أفر بقول بكل مريان حلو إيه مايو حل ما لا ربو سومال أنت هيعتو ما لا ربو سومالي هذا لا ربو أنت هيعتو وحالي راها مقعي ولا لسه لها ولا قبح لها حمر ما لك لا يقل لها ما لها سعيدة كل اسبوع ثلاثات فدرالك waxa weeyaan rasmiga waa markay nabadu ay jirto laakiin marka nabad ay jirin ciidanka oo dhan waa hal waa inuu noqdaa waa maxay ciidanka Puntland ciidanka waxa la yiraahdaa Jubbaland ciidanka waxa la yiraahdaa Ireland ciidanka Batiikhland war ciidanka oo dhan isku keentiin jabhad al war dagaal culus la galo 2 sano 3 sanadood xagan Puntland boo soo careen halaga daba caro xagan bahash bay careen xagee qabanayaan آخر هو الدالي لكن ما كان أنا ويراها عيدا كيك أفر با سينيا كنت قفل مانتا سنة كان أنسينيا أبا نحن قفل مانتا سينيا حمر وحال نحن كترسا وعاصمة الصومالية نحن قفل سنة كسيو أبا بقول قفل شن بقول قفل سيو أبا كون قفل سيو وحي ترسا أولي بالعكس لقب سنيو تي عيدا كلقب سنيو تي بولس كلقب سنيو تي أي لقب سنيو تيف تبعير لعقاب سنيو واي هاي مامولدين العقب ما سو صارتين لعقتنا ما انو اسكو مسروفتين عيونيدين كو مسروفتين مساكين على قلب العقد هذا بلود داي بلا نبدا كو سميستان غسل قرنا سومالوين بلا ورسومالوين هذا ساكو من مس سومالوين يو اي وحا كو من مايا حقيقه وكذا قرن بان دقيقه هذا القرن كساكو من مايو قرن كوكو من مايو إنا لحسوقه تذكر مقديشو وأضرب وصاصي وحالي لها كسمايو أهورديو يو هرقيسة وقاري أودتد وتلفزيون في عد أودتد ونرى في على كل وشهي مركز قراء حمر القرح ما كل عين لبع الشوق بين يسكو ويسيسين
حرصوا ما أنك صلح سوق يا هذا قبيل دنبا ما أنت وحير كهرب حاجة هذه إنه كنا ما أنك سوا من أنت اللي قبل تبى ما أنك سوا كوفسيرسي إيش كده وحكله حلاشي بقى اللي قبل تبى كان صح حرام تو تقدر ما أنك قبل سنة كوفسنايا أما وحويان لا بala soo galo Soomaalida soo gasho ama waxa weeyaan ciidanada Soomaaliya jooga buudna ha noqoto gobolada de Soomaalinimada ogol aniga ninka Soomaaliga diisan anigu shaqo ku leeyma nimankan Soomaalinimada ogol nimankan la calam buluuga ayaan wadana ha iska qaadaan calamadan ay wataan adar Soomaali waa hal calankaagana waxa la yiraahdaa meel dhigo xafiiskaaga dhigo calankaaga ka buluuga ha caasimada saaga oo bulbulo aad degan tahay ciidankaaga oo dhan waxa la yiraahdaa military-gaaga waxa oo dhan xamarkeen xamar hadegto Soomaalnimo waa helaysaa xamar karar oo caasimadaada aba wadanka adigu degan tahay keen Soomaali way degaysaa alaykum salaam laakiin xamar ba qaraxa dhixdii oo maalinka sala qaraacayo ciidankaygiina anigu ilaalinaya xaafada deganahay buu ilaalinaya oo markay Soomaali qarxiyana ilaaha been iyo balaayo wallahi waan ka naxay Soomaalinimo wallahi niyo Soomaalidu munaafiqnimada ma ogol iyagana rabi Soomaalinimo way ka baqayaan wax la dawlad xanuun bay qabaan leeraha waxa la yiraahdaa Stockholm ay qabaan leeraha waxay ka baqayaan dawlad haday timaado ina caashur la qaado inay waxa la yiraahdaa ciidan fiican la yeesho in qofkiis walwala la xiro in waxa la yiraahdaa musuq maasiqi uu dhamaado in waxa la yiraahdaa kiilan dheeraha is walwaalay haduu lacag yar qaato waxa la yiraahdaa jeelka lagu tuuro foodadaasi doonayaan caashur maraba inta bixiyaan waxa loola dagaalamay xamar bawaanta waxa qarxinayana waa Soomaali qarxinaysa hadaba waayo hawiya ma shiishaanina ma waxa la yiraahdaa jareerna ma waxa weeyaan waa dadka Puntland dega waa dadka Somaliland dega waa dadka waxa la yiraahdaa Galmudug dega waa dadka dega waxa la yiraahdaa maamuladaas oo dhanba ayay shabaab ka dhisantay iyaga ka dhisantay دول يهود وحالي راني نمان كان اللي راهو أبو صنوة ودوتها وشلبه بحينما وحاقر حي وحاقر حي مشال ما أنت لها مش شلبه لها عيدك أمي صوبك بحيا بل إنكو عقل جاء لبا وقرح ووين بما أنت سلمك للصوبي مركانو هذا تا حمر حاجة سنك بحيا حمر حاجة بحيا أذر لبها لصوقل فرماجو تو صوقل أم بقى صدح صوقل نمبر 1 هذا الكرسي يسكدب حل منو هيسي واي حتى عقل لا هي ما أنا كسب قرحو أكثر هذا ما كل عين ما أنا كسب عرض مال الدين ديني ما له شيء لهي عبد الولي قاس ما له شيء لهي لما يروح شاهو قاضي لهي صاحب الكالة عاصمة هذا وررنا حاجة ديني نمان كنا وحلينا مامل هنقضان إلى أدوك مامل واحد سنة نمان كحمر وحاول ديني مامل سمستان أنت مامل سمستان وحاول ديدي وحاول أقول سورتي أنت مامل سمستان إلى بوت لامبا مامل بيتهاي كنا مامل بويا كنا عيدا كيسو سمستان كنا قالي يسوي نعرفته كنا وزير دي سبولي برلمان كي سبولي وحا وديدي حمرة لوغا دغو خلي لها ساسو كره وسومالنimada nooga dhaxayso maamulka xamar madaxweynihiisu waa fulaan maamulka Puntland madaxweynihiisu waa fulaan maamulka kale madaxweynihiisu waa fulaan oo hada tolo safarmaajo kale madaxweyne guud ahaan laga dhigo ma garatay sanadna laga dhigo caasimad waxa weeyaan Boosaaso amba Garowe sanad laga dhigo waxa la yiraahdaa Galmudug sanad laga dhigo waxa la yiraahdaa Jubbaland shantii sanaba meel laga dhigo adduunka dawladda asaas waxa la yiraahdaa ku shaqeeya dawladda asaas ku shaqeeya sanadka shantii sanadaba caasimad madaxweyne ma kala doorto madaxweynaha caasimad aba wadanka uu degan yahay baa laga dhigaa caasimad
waxaa loo jahwareerinaya masaakiin iyo aan waxba garanayn oo carruurtooda loo dilaya, carruurtooda loo xasuuqaya, dumarkooda la dilaya, la kufsanaya, 10 ciidan oo ajnabiya gabdhaheeni ay farfaraynayaan. amase waxa u tagi weyday waxa la yiraahdaa Puntland, waxa u tagi weyday waxa la yiraahdaa Jubbaland, waxay xamar u ilaalinaysaa. waxa la ilaalinayaa waa la ogyahay xamar hadday nabad ay hesho in Soomaaliya dhan ay dib isku soo noqonayso. laakiin iyadoo saasana waa inaan maskaxda keenaa war xamar saan u soo celinaa, war Soomaalida saan u soo celinaa, waa inaan maskaxdeena aan ka shaqaysiinaa. ninka wax tarayana inaa meeshiisa la dhigo, inaa nin kastaba meeshiisa la dhigo. nin basketball ciyaaraba amni laga dhigaya. imise generaal baa jooga niyo Soomaaliya, imise generaal baa jooga oo shaqadooda ay tahay. kan Puntland jooga ma keenaan ciidanka haysta waxa la yiraahdaa Puntland ee militariga ahaa weligiiba. Axmed Madoobe ma keenaan madaxweynaha ka tanaasulay aan noqdo wasiirka, ma ka dhigaa wasiirka baalka intuu madaxweyne ka ahaan lahaa. ila waa ka shabaab isaga bacsaday berigii oo dhulkiisa ka saaray muu isagu yimaado wasiiru noqdo. madaxnimadan uu doonaya ee Suuriga waxay tahay Axmed Madoobe, waxay tahay waddankiisa hadduu rabo Soomaalnimo, hadduu rabo afar Soomaaliya haddaad Soomaaliya rabtid kaale wasiir ka noqo. nimankan maamulada sheeganaya kaale wasiirro ka noqda. ila waxaa maamulaysid waa shaqadiini, this is your job. laakiin dad aana jobkooda ahayn marka karaasida loo dhiibo te waa la saysanaya, waa la isqabsanaya. anuu xaggaasa kaga baxay sheekada xamar. farmaajo amba kursiga dhiib, amba waxaa la yidhaahaa xamar ciidanka Soomaaliya oo dhan isku yimaado, balaa Jubbaland, balaa Puntland, balaa ayeeyo. raggaas hadday wax kula qaybsanayaan ay ogol yihiin inaa ciidanka oo xamar nabad laga dhiso oo ay noqoto caasimad rasmi ah oo aanay waxba ka jirin. ciidanada Puntland iyo adduunka babakda alla keeno. hadda awoodi kari weydi adeer kursiga dhiib lana madaxweyne ma tiid. ninkaana control ku lahaynba waxa la yiraahdaa ciidamadiisii waddankiisii federaaliga ana ka wasnaa. federaal anaka wuxuu noo soo kordhiyey, qabyaalad buu noo soo kordhiyey, dulub buu noo soo kordhiyey, gaas buu noo soo kordhiyey. waxay noo keeneen federaaligooda. waxay haystaan waa kuwaas 10 calan bay haystaan. waxay dhalinyarta u keeneen. dhalinyarta waa kuwa maalin kasta tahriibaysa, gabdhihi waa ninka soo tal kufsanayo. iyagoo nabada ayaa gabdhihi la kufsanaya. ceedceedaas oo shibska jirtaba gabdhihi la kufsanaya, gabdhihii la dilaya. inamadii yaraa tahriibay cararayaan. carruurteeda jaamacada ka baxay iska fadhiya shaqo la'aan, qaad ay u fariisteen. jaamacadda waxaa ku bixintay qaad u fariistaan aakhir noloshii 12 sano iyo 14 sano wax soo dhiganayeen. waxaa u fariistaan aakhir qaad u fariistaan, shaqo la'aan hayso. marka anigu waa intaasaan kaga baxay. waxaa la yidhaha sheekada Muqdisho waa anigana waa iga talo wallahi. mowqif laga gaaro si degdega qofka marka anigu waxan waa iga fikir. qofka diisan isaga taalo waxan waa social media fikir baa la kala weydaarsanaya. hadduu adigu cajibo way hadduu kala cajibiya marka daruuri ma aha. anigu muu jeedi baa inaa qof ku qanco, laakiin waa fikir aan soo gudbinayo in meeshan lalaro amba waxaa la yidhaahaa ciidanada dhan Soomaaliya isku keeno oo inaku aan kalsooni isku yeelano. qaraxan laftiisa karaamo xumo inoogu jirta Soomaali markaan nahay. rag ninku maanta hadduu gurigiisa ilaashan waayo yaa walaalanaya. maanta aadaan kuu dhiibaya raggiina xagay daawanayo gurigaaga haddaa ilaashan weydid ma nin ajnabi ah ku ilaalinaya. anigu guri baan deganahay, xaas baan leeyahay alxamdulillah. ma gurigayga ma nin baa ilaalinaya mise waxa weeye anigu intaa ilaashado inaa wixii dhibaatay manaysa anigu ka hor imaado, inaa anigu ka shaqeeyo gurigaygu siduu wanaagsanaan lahaa. dee adeer waxa weeyaan niman ajnabi aan la ilaalinaya, niman fulaan baa la ilaalinaya,
dowladda shisheeyaan u tegin haddaan kala xanaaqno dowladda shisheeyana ala dhex dhexayso adeer waxaasi hadal maaha soomaaligu anigu waxaan aaminsanahay uu awoodi karaa inuu waxaa la yidhahaa waddankiisa u dhisto wuu awoodi karaa inuu waxaa la yidhahaa nabad uu samaysto wuu awoodi karaa hadduu isagu qanco hadduu isagu aaminsan yahay laakiin inaku ma aaminsaniba waxaynaku aaminsannahay nin ajnabiya ninkii ajnabigana wuxuu maanta aaminsan yahay laba qarax haddaan ku sameeyo yaa shacabkan kicinaya dowladdii baan ku kicinaya dowladdii baa laba cisho xagga loo fadhiisanaya dowladdii hadhow tale waxay ku qasban tahay inaan nimanka la soo celiyo inaan nin ajnabi ah 3,000 oo euro oo waxaa la yidhaha $1,500 inuu ku qaato wiilkii soomaaligana uu ka qatanaado haddaan caqli aan leenahay waa taa siyaasaddeena loo dhigay siyaasaddeena loo dhigay waa taa weeyaan ciidanka imka somalilan jooga waxay qaataan waa 150 amba $200 bay qaataan ciidanka puntland jooga $100 bay qaataan amba $50 bay qaataan ciidanada jooga waxaa la yidhahaa gulmudug iyo ayayo saasoo kale ay qaataan nin kenyaati ah amba nin ethoobiyan ah amba nin waxaa la yidhahaa bahalkii amisonta ku jira oo qandiisa wuxuu qaataa 1,500 buu qaataa 4 bilood amba 5 biloodna fasax buu qaataa lacag fasaxa loo sii qadimaa caruurtiisu buu tagaa jaamacadaha ugu wanaagsan bay maanta ay caruurtooda dhigtaan shawaaric bay dhisteen wada dariiqyada tareenay samaysteen adduuniyay samaysteen waxay ka samaysteen dhaqaalihiina bay ka samaysteen nacasnimadeena baa laga faa'iiday doqonnimadeena baa laga faa'iiday ciideena baa la xadaya waxaa la yidhaahaa oo la goranay wallaahi oo ballaahi ciidda soomaaliya waa ciidda ugu qaalisan adduunka luuriga keliya ee la raro ayaa $1,000 ah amba $1,500 lagu iibsadaa hadda waa ciidda adigu waxa ka hadlaysin bad iyo waxba ka hadlaysin ciidda soomaaliya taala waa ciidda adduunka ugu wanaagsan wax kastana aad ku beeri kartid ciidaadii baa maalin kastaba gawaadhay lagu goranayaayo dhinaca Ethiopia iyo dhinaca Carabta iyo dhinaca baarka lagu qaadanaya geedadkaagii baa la gubayaayo dhuxul laga dhiganayaayo waxa la yiraahdaa Carabti ay waxa la yiraahdaa bakhur ku dhisanaysa adiguna ka laada inta quraanada iyo cadar inta ku siibsada adigu shiiraya oraya waxa la yiraahdaa sabaq baa jira xabagtii waxa la yiraahdaa ugu qaalisan adduunka waddankaaga bay ku taalaa waa la qaadanayaayo wadana kale ayaa ka faa'iidaya ama santan ku ilaalinaysa amba dadkan ciidanka qorba ku ilaalinayo uma ku ilaalinayo waxa la yiraahdaa uu ka naxsan yahay amba nabadaadu raba nin nabadaada jecel Soomaali maanta hada tahay ma jirto way adigii baaba nacab nabadaada adigii baa nacab adigii baan ogolayn inaad noolaatid oo sharafa ku noolaatid adigii baa nacab nin gumaysiyo weliga inta hoos joogtid adigii baa jecel in maalin kastaba lagu yeeso meel kastaba adduunka adigii baa nacab ina magacaagii oo Soomaalinimada ahaa ee la yaqaanay oo la oran jiray Tiger of Africa la oran jiray oo inaga dhashay waxa la yiraahdaa sayidku oo inaga dhashay dad badan inaga dhasheen oo la yaqaanay oo kutub la qoray oo taariikh la qoray oo adduunka oo dhan la yiri dawladda kaliya adduunka 5 dawladood inta gumaysan iska xoreeyay ayaan maanta inaku gaal iska daayay Ethiopia iyo Kenya aan shalay inaku gumaysan jirnay oo bacsi jirnay maanta inakii ay ilaalinayaan oo nabadeena ilaalinayaan oo inay soo dhex galiyaan oo Ahmed Ebi Farti noogu yeeraya sida ayga noogu yeeraya madaxweynihii farmaajo yeeraya sida ayga waxa la yiraahdaa Muuse Biixi sida ayga loogu yeeraya Cabdiwali Gaas sida ayga loogu yeeraya waa wiil yar oo 40 jir xataa mu gaarin iyaguna koogu yar madaxda Soomaaliya joogta waxa weeyaan waa 45 amba waxa weeyaan waa 50 aqligu ina ka yara Ethiopia maanta leeyahay iyo aqliga dadka leeyihiin baan u la yaabsanahay Soomaali inta gudaafad ay tahay waa kuwii cabdi ileeriday okay waa ninkii alahayd waana dulmay waa riday Soomaha kaalay heshiye hal qabiil ba heshiila hal qabiil baa labo kala baxay markaas ay kuwii saddexaadna ku soo biireen xagan dirkii baa haysta waxa la yiraahdaa gilka shanaad waxa la yiraahdaa waxa haysta waxa la yiraahdaa ogaadeen oo labo kala qaybsamay saasa la isku cunaya xaqiiqo ma ka hadlayaan wallahi xaqiiqo ma ka hadlayaan yaa ku ciyaaraya eg aqliga ninkii waxa la yiraahdaa tikrayga ahaa ee Soomaali xasuuqay cid kasta xasuuqay oo Ramada xasuuqay kursigiisu ku fadhiya kii Soomaaliga kursigiisa loo qaaday ba jeelka lagu tuuray oo Soomaali ku faraxsan yahay
عقلك كينيا وحالي لها ما فهمتي وحالي لها انا فهمتين بلا روا انا فهمتين سومالي مeel kasta gumaysiga jeceliin imanka nin ba xagan af carab ku soo qoray xaga suuqa caaya waa la gumaystaa muuse bixi sida ayga loogu yeero ayga hey kaman intuu bari intuu yimaado waxa la yiraahdaa Ethiopia anu xaga iga faanaya isugu gumaysi ku jira oo qabiilkiisi kala dilay oo jeegaan iyo waxa la yiraahdaa garxis ka kala dhigay oo wadankii loo dhintay oo loo intaas oo dhan Soomaaliya loo burburiyay qabyaalada wada dadkii la deganaa xataa ixtiraam maayaan waxaasa kule waxaan nahay midnimo rabnaa iyo Soomaaliland baa rabnaa yaa rabnaa mid kasta oo nafaqnimadaas ku jirta Soomaaliya meel kasta oo nafaqnimadaas ay naga dhaxaysa gudaafadaas oo kale weeyaan waxaas oo kale ayaa nabaabiyay wax aana wax ahayn cilmiga haysan aqoon haysan ba kula hadlay ala umar waxa inta ka baxay waxa ka hadlaya kursiga ما شاء الله waxaan maqlay gabadhii waxa la ilaaha ilaahay una xariisto oo waxa la jannada ilaahay ka waraabiyo inay waxa la ilaaha nimankii kubsaday la helay horta waa aad baan ugu faraxsanahay waxa la ilaaha anigu waxaan oran lahaa nimanka horta يا أنا اللي دين المركلية حقيقة نمانك يا اللي دين المركبة نمانك وأنا أي درسوا نقطان تاريخنا أي قرار أو نك الصومال مريس راه قبل كفصو وحسوستا حبا جرو قبل أنتو كفصدي عذابي لما عشوا إنه هل دقيقة حبا جرو رصاصة مدح لقول رفتان بقى لدلدلو horta wax ay soo kordhaysaa ma jirto anu taasana ugu aaminsanahay waxaan ugu aaminsanahay waa inaan marka ugu horeysa guska laga jaraa guska marka laga jaro la daayaa milix lagu shubaa hal toolana waxa la yiraahdaa gacmaha ay gabadha dubaha ku dhufeenayna maalina gacanta la jaro maalina gacanta la jaro ina meel la soo suro sidii masiix saa gacmaha ala soo suro maalina gacanta xagan laga jaro maalna gacanta xagan laga jaro xaqiiqa baan ka hadlaya maalna lugta laga jaro marka la dhameeyo yaa la dili markiiba yaa biyo kulul lagu rido amba saliid kulul lagu rido anigu shakhsiyan cadnaan maanta anigu hadan madaxweyne Soomaaliya waa lahaa amba maamulka Kufsiland ayaa loo bixiyay 2018 iyo 2019 iyaga haysta Kufsiland حناقنا دادر هذا دون سين دواينا عدالة لكينا قبلنا لكم صنيو هذا دون سمك عتل اللي قبدلو هذا دون سين بوتنا نوارتو كل مدك هوارتو أيه هوارتو وطننا مدي صومالي تعايب هودي صوماليا هذا دون سين راهنو وأنا وناكسنا على تماتي نمانكا مركا لبضل القودي لبضل قعمود لقشرو إسلا مركي والسريد لقوه دقلية قعمود دقلية ما قليسي ما لنت ضمبه biyo kulul galiya saayaga oo shiilmaya wallahi xaqiiqo ka hadlaya marka nin kasto kacsada ka bacdi waxa la yiraahaa waa dib dambe nin kacsanaya Soomaaliya horta ma arkaysin xaqiiqa waa ina waxaan la duubaa adduunka dhan hayaabo maca shabaab ka baqaysa adduunka dhan baa baqaya wallahi waa ina cuquubad noqotaa cuquubad waayo wadankeena maanta ma u baahna ina la naxo هذا نك قلت كلا وأنا ويجي سحر مريا وأنا وح معجزة لقو سمايا هذا أنا معجزة لقو سمين صومال حصون ما يسو صومال بق ما يسو صومال وأنا ويبقى ما حشودان لكن هذا ما كادر لك أنا ولا بقول لك أنا سيدي كوي كوري أو بمكتقات في المنطقة لك أنا يا والله تنكهل يا وحقيقة والله يعني واحد أي سوكرنيا مجرتو واحد سوكرنيا مجرتو حقن بلغسي وضيع حبدا رصاصة كله فلسي تشك ما أنت دبا عادي
bani aadamka aslanba markuu jiriimo sameynayo amba uu wax kursanayo aslan bedilku caadi buu yahay marka ugu horeysa laakiin markuu dareemo inaa la jarjarayo inaa dhibaato badan loo geysanayo inaa adduunka lagu cadaabayo intaanu dhiman wallaahi milyan jeer buu ka fekeraya wallaahi milyan jeer buu ka fekeraya marka gabadha xaqeedu yaanu lumin gabdho badan ka horeeyay baaba may xaqoodii aniga gabadhan ahalkayga maaha qabiilkaygana maaha waa soomaalinimo waa gabadha nateedoo kale ah waa 12 jir maanta anigu aabba haddaan ahaan lahaa maan jeclaaday aniga gabadheeda intaasaa lagu galo wallaahi oo bilaahi haddaa gabadheesaa loo geli lahaa ninka waxaa ku samaysay laftiisa was lahaa anaaba tartiibin lahaa wallaahi waayo wax laga aamusa maaha wax lacag lagu qaata maaha anu xaggana hooyadii waxaa la yidhahaa odayga dhalay baanu sheegaya haddaad doonaysiin war ininku dhaha anaka xukunka samaynayna ininku laftiinu gacmaha ku jarjara xagga labada gacmood ka jara guska ka jara madaxa ka jara waxaad ku sameeya gacantiina soo ininku gacanta yaan wadaade iyo ciidanka waxaa la yidhahaa BFC iyo ayaanu dhibaynaa ka daaya ininku ku arsada gacantiina ku arsada marka على العموم ان شاء الله waxaan rajeynaa insha Allah Soomaaliya inta hagaagto FIFA balana Soomaali weyn Soomaalinimo FIFA ninka ka xun FIFA dana ayada u sheeg ma garatay hadda adigu calan yar isku soo xidhay madaxweyne beenbeen oo kitaabka Ilaahay ku dhaarto qows u dhaartay anigu adeer anigu waqtiga kulma maayo aniga Soomaali weyn bay deeqdaa laakiin Soomaali weyn tay deeqaysaa waayo waa taxal kale ta maskaxda leh ta wax keenta maaha nin aniga fadhiya oo basketball iyo nin aan la garanin oo nin aan waxba haysan nin aan talahayn nin aan fikir hayn inuu aniga taliyo hatta anigu fiifada waan kaga noqonay haddo waan iska soo ceshanaya waan maqlay laba jiro oo lagu kubsaday waxa la yiraahdaa qadho waan maqlay ama waan maqlay gabadh laba jiro xataa kubsadeen waa niyo nimankan yaa naga qabtaniyo wallahi niyo nimankan la hawla illa billah haddana qabiilka waa ina qabiil ag Soomaaliland adeer waxa ma geysantii ma isaaq ma maanta kalmada gabadh kubsaday laba jirka ma gabooyar kubsaday ma waxa kubsaday waxa la yiraahdaa magaci hawiya kubsaday maaha waxa kubsaday waa majertenia al-arabiya kubsaday كعسي هذا سكيريا كلهم كبدنا سكيريا والله عادي بتيدين دولة نبضة أو على الفيفا يا دنيا دنت أنا وأنا يقراها دل باني واحد سولا عدنا هذا قبوية واحد هذا قصاص هذا صار والأنو قبوية أنو نادر تيري مكرشدي إن أنت المادر الحين أنو مكرشدي إن أنت المابتين الحين أنو مكرشدي تاريخ لما لا هايون قبوية قبلها كرشدي ما لا هايو لكن إنك قبيلة إلى نرى شو شيء ونادر تيم بوستين وحالي هبروداك تيم بوستين عروض تيريد بوستين وحالي خنيسين بات ليدهين وحالي كريستن با ليدهين هذا مكسر ورنا يا متقال شنو ما قبل حتى إنك ساو قلتين خنيس كي وينك فتال كي وينك والله وحلا يا أبو وحك مكسر كفار يا لانديرك ورنا يا لاندير وحكتها لاندير وحكتي والله حاجة كهذا يا يعني قبل يروح لبتشرة هيرك اللي قال لما يروح كبتشرة أيام كقرر لكم صلي مردوي عصر ذي بيها نك أنا وحلا يابس قف كجاري حالة إنه قبل يروح لبتشرة كم صلي تيل لما يتمشر كي باشر اللي يقيني تيل لبتشرة كها أي شيء اللي يقيني تي أفريت وانك كسيور ريسي تي سيدي توانك ما كسيور ريسي رجي حتى لو كوسانيا والله معاه ماشي يا كوسانيا لانديرا ما كوسانيا لاندير والله لانديرا ما يعيش والله عيار والله يا والله حقيقة ووحنا لا يا ونيو قسم بالله
waxaa keenay qabyaalad baa keentay imanka inantaa labada sano la kufsaday aabaheed baa loo tegayaa lacag baan ku siinaynaa waxaa la yidhaahaa weligeedba gabdho waa laska kufsan jiray baa lagu oranayaa waxaa la yidhahaa shariicadii waxaa la yidhahaa magacii diinta waxay leedahay waxaa la yidhahaa waazino bahalkii hadduu xaas yahayna dee adeer ma nin baan u darnaa waxaa la yidhaahaa ya wallahi xaqiiqa ya ma garatay yani xaqiiqa baan ka hadlayaa xaqiiqa waa run yani odaygaa loo tegay wallahi anigu gabadh lagu kufsaday baan garanayaa puntland sanadkii hore odaygii baa soo hadlay telefon buu soo diray wuxuu adeer waxay kaakacay ahayd ma malaya madri meelahaas ahayd anigu intaasoo dhan dee qabiil baas kale weli abtigi weeyaan waa hawiye iyo waxa weeyaan waa majeertan iyo habargidir labadaas imanka kursiga caan ku ah xaqiiqa dee soomaalida kale ma lahayo isaaq ma lahayo adeer dhulbahaante ma lahayo waxaa la yidhahaa ma lahayo waxaa la yidhaha magacii waxaa la yidhaha gawooye ma lahayo nimanka maanta caanka qaatay koobka qaatay waa labadaa nin caruur rag dumar cid bahal bay saa wataanoo cid kasta waxay doonaysaa gidaar intay maca gidaarkaas hadduu hilib lahaa way gelin lahay koobka adduunkay qaateen wallah marka waxa weeyaan odaygii waa loo tegey haddana gabadhiisi baa la kufsaday gabadhiisi baa loo tegey odaygaa loo tegey waxaa lagu yidhi adeer waxaa naga daa waxaana wadid hadda adayg baa lagu leey waxaana wadid adeer naga daa meeshaa nagu ceebeen weligoodba gabdho waa la kufsan jiray gabadh okay haye kabacdi bacdeen wallahi waxa weeyaan magacii islaantii baa markii odaygii albaab loo wara u yiri anigu waan fadeexdaynayaa anigu saas samaynayaa waa ina xaqaygii lii keena ilanteedii baa saa lagu sameeyey odaygii fideoyadii social media soo geliyey qabiilkiisi baa loo tegey qabiilkiisu waa badhibaan ba odaygu ahaa odaygii baa layidhi dadkiisi baa loo tegey waa niyo odaygiinan meesha gabadh la carcaraya waa la kufsaday oo filmaanta wada gabadhii waabu ceebeeyey adeer meesha ka qabta والله ان شاء الله دنتو والله ان شاء الله بعد ما كان ممكن الله كبح بسكت كاس العنايا بسكت كاس العنايا ان شاء الله كل دنتو حقيقه ما والله كهضليا يعني وحيابها ني شيء ظلمك iyo dhibaatada ummadda u keenaysa maalin kasta inta gabdhaha lagu tacadiyo qabiilka doonta ahaado waa waxyaabaha weeyaan odaygiiba wixii salaadiin ahaa ee madhibaan ahaa oo dhan baa carray ay maa nagu ceebanaysaa ma jiwaal baa maanta la xiriirtay ma cadnaani xamda maanta la ximka meel kasta adduunka nashirayaan imankay gabadhii sumcaddii baa ka dishayaa berito la guursanaya wallahi alcadiim baa inii sheegaya odaygii miskiinka ahaa meel baa lagu xidhay markaasa islaantiina lagu daray alayr gabadhaadii sumcadda laga dilaya ninkuu guursanaya ma jirto oo baba hatata hatite waa maxay waxaa xala waa inuu odaygu yeelaa inuu qadiyadda ka tanaasulo waa inuu magta qaadaa waa inaa gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday loo guuriyaa waa taa cadaaladdu waxaa la yidhahaa taalo soomaaliya marka gabdhahan iminkana waxaan ka baqayaa inaa saa loola dhaqmo gabdhaha beritoo la kufsanayana saasubaa loola dhaqmaya marka anigu qadiyadan caasha anagu haddaan jiwa aan nahay faa'iido weyn baa noogu jirta faa'iido weyn noogu jirta waa maxay inaan soomaali gaarsiino adeer waxaan la caadaystay nin baa iska kacsaday oo gabadh biyar buu iska fuulay waxaa la yidhaha halotolana ha loo guuriyo waa wuu zinaystay laga dhigo qadiyadii iyadoo kursi ahta kursiguna waa maxay waa nin dukaankaaga soo galay dukaan baa iminka leedahay nin baa waxaa la yidhahaa ya ma garatay waxaa la yidhahaa ku qabsaday dukaankaagiibu kugu yimi dukaan baa leedahay diintu shariicaddu waxaa leedahay ninka waa satu oo kale ikhtisaabka iyo satugu farq ma u dhexeeyo kana waa nin kugu soo duulay oo doonaya waxaa la yidhahaa inuu waxaa la yidhaha dukaankaaga kaa xado oo awood iyo xog kuu qaatay ninna waxa weeyaan gabadhii dhammayd xoolaheedii iyo mustaqbalkeedii iyo wixii ay beritooda ku shaqaysan lahayd ee carruur ku dhali lahayd ee nin wanaagsan ku guursan lahayd oo nin wanaagsan ku qaadan lahayd ayaa laga baabiyey la xoogi oo xoog mindi iyo hub iyo wax kastaba waxaa la yidhaha looga qaado xaqeeda waxaa la yidhaha alaabta marka waxaa dhacday
okay markay satu iyo ikhtisaab ay tahay satuga waxa weeyaan waa ninka dukaanka waa gidaar dukaanku waxa weeyaan waa gidaar iyo bashar maaha waa wax kana waa bashar oo bani aadam oo dhiig leh oo dareen leh oo cabaadaya oo ooyaya oo ku baraya oo kale ilaahay waa ilaahay ka baq ilaahay gida sharaftaydi cirdigaygi ku baroranaya ku ooyaya kaas waa zina ka dhigan zina qadiyad zina ay doonaysa ka dhigan kana nin dukaan oo gidaar la waxa kulana waa satu oo waana gacan iyo lug la jara xaraaba xukm xaraaba waa lagu sameeyay adar xaraabada waxa ku haboon markaa ninka gabadhan kursaday gacan iyo lug laga jaro ina guskiisa la jaro hada diinta ay sax doonaysiin inta jiro diinta dadku waxa ugu carayaan qabiilada meesha degaa dad badan ba diinta ka baxay oo adiga ku aragtay social media rag badan ba khaniisiin noqday say gabdhaha ku soo ilaahay khaniis ka dhigay ilaahay ma adlum meesha fadiixada ku jirto waxa uu ba ka soo baxa calaamadaha uu ba ka soo baxday waxa keenay waa dulmka la dilayo talabaad dumarku adduunka meel kasta haddii aragtid ummad horumar gaadhay ummad xidigta iyo cirka gaadhay waa ummad dumarkooda ixtiraamto oo qadarta haddii aragtid ummad gawaadhidii samaysanaysa diyaaradihii samaysanaysa waxaa la yidhaahaa caqli iyo dad badan oo caqli wanaagsan leh ka soo baxaan waa ummadda dumarkooda ixtiraamta laakiin haddii aragtid meel baaba ku jirto meel qabyaalad ku jirto meel qax ku jiro meel abaar ku jirto xataa haddii muslim ay tahay oo dulmu ku jiro oo dhibaato badan ka jirto ilaahay ma yansurha abadan ma yani ma guulaystaan ilaahay guul ma siiyo ma garatay xaqiiqa ma ka hadlaya وحقيقة وتادي marka hadda doonta waxa laga baxo waa in aan dumarkeena ixtiraamna waa in wixii waa in xeer la soo dejiya waa in qaanuun la soo dejiya inay gabadhu yaakhi nafteeda ay sharci mari karto imkaan Yurub joognaa oo xagana joognaa dhul gaala gabadh haddii xataa sharci isqaawso cid isaway karta nin rag ma jirto nin rag isaway kara mid waa dhul gaala nin isaway kara ma jirto gabadhaada adiga qabtid baa lagu leeyahay waa ina si Yurub taay ku leedahay naagtu waa ina ku ogolaata haddaana ku ogolaan ay ku soo dacwayso tiraha uu qasmay hadda waa naagtaadi waa xaaskaagi jeel baa tahay waa lagu xiraya imsarago Soomaali xagga Soomaali jina ay naakay baash ma waa lagu adkaysay wallahi kalka talga tuuray baan arkay dumarka marka la ixtiraam maantana Yurub xabiiska gishid meesha tagtid dumar baa haysta iyagii baa adduunka la wara aqli bay leeyihiin dumar wanaagsan carruurta wax wanaagsan bay kugu korinayaan carruurtaada waxaa la yidhahaa intelligent bay ka dhigayaan laakiin adigu markaa yeestid adigu markaa dumarkii zero ka dhigtid adigu maxaa la yidhaha markaa baabiisid adigu markaa wax aana qiimo lahayn ka dhigtid waxaa kuu soo baxaya carruur aana qiimo lahayn waxaa kuu soo baxaya madaxayaal amba wasiiro aana maskax lahayn waxaa kuu soo baxaya waddan warabaaba ah ayaa kuu soo baxaya marka anigu waxaan jeclahay war adeer inaan laga faa'iido qadiyadan oo xeerar adag la soo dhigo ee xuquuqda dumarka la ilaaliyo oo xataa nimanka qaba inaanay gabdhahan ku tacadi karin inaanay maagi karin inaanay aflagaado ku samayn karin inaanay tacliintooda u jiigi karin inaanay horumarkooda ku hor istaagi karin ayaa la rabaa diinteena islaamku dumarka waa xishmeeyey وحشمي دين الإسلام تو وحشمي دين الإسلام كو واقع مركز سوق يا لسوق عيا ما قالت دين الإسلام كو وحشمي دو مركز الرسول عليه الصلاة والسلام سيدة خديجة والدة سنجري مركز أدون كوكو في المتو سيدة خديجة رضي الله عنها والدة سنجري عائشة والدة سنجري دو مركز والدة سنجري نبى كوري ما دمر ما لا تشرع أبغى وحياها قيمها إلى ريحها ما قبله واحد ويديها يوروب نمركو يمادو والله ناق بعد لقاك حارت عاد رقاص والواليا
سيدي أيدي ويريده ما فهمت. مركا على العموم أنا وحار لها هذا الكل مانيا بوتلاني قلمودي ماشي تنتين أنا ما قري ماشي كل عادي أنا وحنا نقول أريد أسمع كل عادي بوتلان هذا حتى سوق هذا يلا حناقل أنا عربها كوكور أنت سوق بوتلان ما سوق هذا تبوتلان بيهانجتي سومالند يبوتلان يحمر بيهاي وحكى له صوب بحياة دونه حاجة صوب بحياة لأن كان عقلي صدق سكوا كفلنا مركا وحويان هذا دون السين إنا هرمر لقارو وإن وحالي راها لهلا وحالي راها مقعي عدالة لهلا سومالي ودن وحينا ورا ديغدا عدالة بين الديغدا حقيقة ما كهض ليا دمر كسومالي وحال ليا هذا ريال ما أنت ماشي أتشوكتين إنك أسدقي أنا دمر كسومالي أنا قاعد مقليا ما أنت بوس كاف الدين إنك أسدقي عندنا ما أسدقين قفكنا سومالي روح حكومة ماذا هاشو ماشي لقوم بالغو قشع إنك أيا عروتين وحكو كرسين لانديرا باتهاي لانقا باتهاي قبيالة إنك عروتا كوكوريا انتو يهاي شنشر وحالي ما انتو لشق إلا انتو شنتمشير قاريو إنك قعنتا إنكو هيا إنك تاريخ قبيل كودقا قبيل قنصح وياهي قبيل أوغا شنية طبعا نفو عنو تشري أوغا شنية طبعا وحالي لها سيف وقاتل وحالي لها من حمر إلايو تشاينيسكا أيو عدو لدق عالمي sheekooyin balaayo iyo been ayaa ku akhriseen gabadha yar subaxnimadii naya ka ordaynamada carruur samee naya ka ordaynamada waxaa la yidhahaa magacii ordow ka dharka u soomeen naya ka inamada telefishinka daawanayaan ordoo rag baa yimiye ordoo qaadka shaha soo kari adigii baa gabadhaadii ka dhigtay inay Soomaaliya jaareed ka noqoto aan qiimo lahayn hadda inanka yar iyo gabadha iyagoo yar yar waxa la yiraahdaa bar lahaydeen inuu inanka yar cuntadiisa soo karsado sida imka Yurub aan joogno markuu inanku gaaro waxa la yiraahdaa 10 jir jarmalka wuxuu baraa inuu ka yari cuntadiisa karsado inuu kahrabadiisa hagaajisan karo inuu waxa la yiraahdaa gurigiisa dhisan karo inuu waxa la yiraahdaa baabuurkiisa hagaajisan karo inuu dharkiisa ka wadaysan karo inanka jarmalku markuu 20 jir yahay naag ma u baahna wax u karisa xaqiiqa ma ka hadlaya iyada isaga cuntadiisa karsada naagtuna shaqadeeda ay qabataa suu shaqeeyo u shaqeysaa lacagtu dhigto bay dhigataa dawladdu labadooda isku xisaab ku xisaabtaan cashuurta wax kasta waxa ku diiday hadaba adiga inankaaga yar intuu yar yahay inta oran lahayd naya aad cuntada soo samee inta aad ugtaa waa cuntada soo sameyso kaale dharka ma taqaanid anaa ku baraya xagan soo fariiso dharkaaga ka wadayso walaasha Soomaaliga ee waa saado kala qiimo ku leedahay ixtiraam walaasha wariya marka waxa soo baxay mujtamac dumarka ixtiraamaya adiga ayaa baabi adiga ka dhigay wax kale adiga ka dhigay inay dumarku yihiin ina la isticmaalo adaa ku beeray ninkan maartay ninka waa laga dambeeyaa de adeer xataa diintu ma orade waxa la yiraahdaa ninku waa muqaddas xaqiiqo ka hadlaya muqaddas ma hade waxa adigu dheertahay guuskaas u ba dheertahay waxa dheertahay iyada ka shaqo badan iyadoo carruur haysata ay wax dhiganaysaa dharkii meelaysaa gurigii xaaraysaa way shaqo tagaysaa way soo noqonaysaa adigiiba ku raaxaynaysaa adigu waxa haysaa haddana raga tahay zero ninka raga waxay ismoodinta waxyiin xataa qaarba koranaya dumarku way shahwad badan yihiin ma aragtay weligii dumar rag kursaday weligii ma aragtay dumar nima iska furtoon maalba nin raacaysa way yiriin dumarku maanta anigu waxaan aaminsanahay maanta hadda gabadha guursisid aad dhimatid
عرور على هاي ممكن أنا جورسن ممكن أنا جورسن أي شوفت عرفت أنت وإحنا قلنا يعني أو بقضوا أي شهودي دي وحدي نعرفه لكن إنك رجع هذه الناقص ما ترمته ما أنت لو قلنا عرفت الناق مرة عرفت وين ناق لو هلا وين لو هلا كعس ما هي هذا عرفتكم مرصونين wax kacas badan ragga wiligaan uma aragde ilaahayna cawaad afar wiil guursada wa ilaahay baa la yaabay afar bal war afar zawju arba'a afar guurso laakiin afartada adigu guulo wal gudilaya waxa loo rawaado marka afar guursadaan way controlaan shahwadooda dumar dad ba kore dumarka ayaa shahwad badan iyo dumarka asaas iyo dumar wallahi ragga ayaa ka shahwad xun wallahi مع الدمر بفوله يهدوا وح دقاق ما نرك قار والله ترتيبنا يا وحلي لها يا عري قسم بالله ما قصر قرنا يا دمر كان شهوات بدن مع ذو صوت الشهوات هذا لا عري يا دقاق يا باش يكوجرسي مسكين يا جورج هدو ولي نكو هدو فرو ده هذا بهشان كلو جرسي مركز هذا ريال وين يقول لي أنا أقول والله دمرك الصومالي آدم أنا جعلها واحد جعلها وحلا يراها إنه يهرمر إيجاران أنا وحنا أمسنا هاي ما أنت دمرك إيجارنا الصومالي هان رج على احترامنا مركز من هرمر جارنا وحنا أمسنا هاي مركز أنا قبيلة إسكسارو أو قبيلة وحلا يراها عندنا عسكر ابنه أو حلا لانجاب يلا عندنا عندنا عسكر ابنه أتذكر يا فور هو يا فور أبو الدجاج وكان أبو حمزة وأبي دجاج وها لا حول عرقة يقلمك لا حول الله رجل يسولني مع داخل الزبالة يا ما عاش أقول عيد ميدة حتى هي يا ورا كل كفتوية والله أمزح معك ما قرتي ما قرتي وحلايا waxaa amsana markaan qabyaalada iska dhigno sharka qabyaalada iska saarno sharkan maamuladan iyo filmaantan iyo waxaan iska saarno ayaan horumar gaarina wallahi wadankeena waa buuxa khayraad waa ka buuxa nimcad baa ka buuxda wala heshiin kara Soomaali waxa la yiraahdaa wala soo war farsan kara nin aniga Ethiopiana leesh ana adun nafsi ala waaxid Ethiopiani waaxid Keeni ana raaho ninka Soomaaliga sidoo kale waa inuu nin noo dhaxeeya way leesh ma soo fariisto adeer kaalay xaga soo fariisto maslaxada ها ورada anigu ixtiraafkayga rabaa waa ka qoostay hadaa rabtid shacabkan ayaa codeynaya ina kala kaxee sheekadu waa easy inay Soomaali isku timaado iyo inay Soomaali noqoto maamul ay noqoto Puntland dawlad bay noqon kartaa gulmada goolad bay noqon kartaa walaaltimo lagu noolaan karaa wax impossible oo mustaxiil adduunka ma jiro waxa mustaxiil noqonaya aqligayga ayaa ka dhigaya maanta anigu hadaa ilaa waxaas waa adag yahay waxaas waa adkaanaya هذا يرى وحاس هو وحاس easy بنقوليه يعني أضج أدوك متشر أنا تسألني وعم سنة everything وأمن كره لكن عقل بالو بهاي وحلو بهاي إن حبي هذا أنا صحني قوية وأنا هاي ضد الصومال وين دولنتا حوض يدا وأنا لقى هيستا وحاول من الله أقلا لكن الحمد لله نمعد ما كنا نهاي عندنا مكفسني عندنا سفارة ماوديان صومالي من عبني ماشي كسر الصومالي أنا كمان دقنا على كسر أنا Somaliland بانهاي Somaliland بانهاي أنا قبل إذا قبل قوية واحد ترير بوتلاند بيتهاي فيفا بوتلاند فيفا Somaliland ما هاتي حقنا وكنا والله مليار ما نسكو حين مليار أنا هذا أنا قوية نهاي أم بتش وحلا مرك قوية حسابي وقبيل كريه مركز الصومالي دقا وقب ما أنت حتى Somaliya يبوتلاند هذا دقالمان Somaliland يبوت هذا دقالمان حقنا قوية كهرسة حقنا قوية كهرسة يجي بس دليل وحش بدليل ضد Soomaali ولا له بالنولي نين كان أنا وحن أمسنا هاي مرك أنا قوية هاي دول كان أدقنا هاي بعوضنا كيجيا وأن دفاعي ما أنت Soomaali هذا قال نور عبارة والله قاعد ساقة أنا كيساقة سليشين أسمع صنو أنا راه واضحهم أنا راه واضح قدافة في النهاية حتى لو بسوا دولو لأنك دفاعي بعد ما يهني كفوقاني يا أبا حماته دو معاه وانقواهي حكومته ونعبه مسبيحي أدون كانوا يقول نعبه لكن آخرك تهديك لا قالوا تهوانو حاجة صدق أنا أروح بوتلاند لمن كرماي قبل يدو أساس وكر قبل يدو
واساس وكره ما قالت ورر بوتلان ما انت انا ما كان حاجه يرا بوتلان قبل هذا هبك تراني وحب بوتلان قصلدي ما بوتلان بلغا هيا وصغر بوي من قد باش دي بوي وما كبرت افكي وحليها انت سيبرتي افكي وحليها رر بوتلان marka qalbigeena nadiifa ahaado oo walaaltimo ka sheekayno hada doonaysid qadiyadaada si walaaltimo uga hadli kartaa ninka doonaya ictiraaf waa dadka walaalaha Soomaali weeyaan ma fiicna inaa caydid ma wanaagsan inaa ka dhigtid cadow ma wanaagsan inta tiraahid Itoobiya baan ka jecelahay ma wanaagsan inta tiraahid waxa la yiraahdo anigu Kenyatta baan ka jecelahay anigu Yahuud baan ka jecelahay dadka Soomaaliya amba mabda'a Soomaali weyn aaminsan amba firmaanta aaminsan inka laftiina ma la rabo dadkiina walaalaha inta kasban lahaydeen ina maalin kasta waxa kana caydin ee doorkii xumaa Saaqland Murqaanland Ayayaland تسالس كوي منايا الكلمة الطيبة وصدقة الكلمة الطيبة وصدقة الكلمة الطيبة وحياة بدو ببدشا كلمة دايرة وناكسن أمتنا ببدشا أمتنا بيت نلطنا ببدشا ما أنت أدقو لباتك وهيستو وحيران أمرك كوي ما تذكر ور أدقو قروح بديه ور إنك كان شيء سعبني ور وحكبح نيتنا كل اسمه لكن ما كان كوي ما تذكر ور أباعون أدقو لبيت أباعون لأن لوش نروح نقول الجحيم وإحنا نقول نار جهنم adduunka wax maanaysa marka Soomaaliya waxaanu ku baahanahay inaan afkeena hagaajino inaan waxa la yiraahdaa qulubteena isku furno inaan ogaano war adeer Soomaalinimada dawlad waa laga tagi karaa laakiin Soomaalinimadeena waa luqadeena waa afkeena waa baad nin isaaqa maanta maan karo magaciisa waa Soomaaliland leeyahay ninka isaaqa isagii baa Soomaaliland la baxay Soomaal baa ku dhex jirta Soomaalidii كان بوتلان بابا مقعي بدلي كان قول مذيق بابا مقعي بدلي كان وحالي راه مقعي بابا بدلي وحالي راه راهو جوبلاند بابا بدلي كان الذي صومالي وديدي مقعي سي بابا صومال اللي راه صومالي وحق اللي لكن وحايسا دباتو كتبانيا قضيات مكتبانيا وحولي ويلي حسوقي ويلي دباتي ولا ارتما نوغو يمي عنك بلوغا راني سو قاضي حقوق ديدي با كنت عستين وإمقل ويدين ووحا مانتا إمكا يقلفتو ضحيا ما أنت يجي لفتوا باش إسحاق واتهايسا نمن اللي راجع كان بمشي تقبسدين أي أدوك إنه يركض سفريستا قرحت السبوعة البحانتي واكليا قبويه وعلى واستهاجي أول قبويه ما مشك على جري وحاكي يعني وأسمق الله آمن هذا الأسمق لها أو اللي يسل لها برهربا من الجار لها برهربا عدة جار لها إنه هو ولا رأس دفاعي أو ناقصن أو وحي هرب بيجيبان ما أنت قال لهم أدونكو ضروري ما هالدول أنت ولقي دولتها أدونكو إنما الأيام الدول أدونكو الدول أين عدنان وقحطان عدنان قحطان وبقرطوي أهانجرتي وحالي لها كن يشب بقول صندوق ماذا ما في ودولة بربري يا دولة عثمانية تمي ماذا ما أنت تركيا كو أكات وحصوب بحي مصر وحصوب بحي وحالي إلى سعودي أرابيا وحصوب بحي وحالي إلى سوريا وحصوب تركيا يا حكم ترتي عالم كلية لهاي مدحوينة كلية لهاي ما أنت طبعا واحد مدحوينة لي دولة فاطمية آيات ترتي مركا أدونكو مال كلية ملكو شركة أنا ما أنت قول كلام دكان كرا بروح دكان قول كلام دكان هذا الدولة مالبن بالكي كرقب سكر أنا مش مع الجيكان أنا ضد الجيكان أنا معارض للجيكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يدخل الجنة رجل من الشيطان ما جيكان ما يدخل الجنة هم قصوا قالوني أنتوا على الجحيم وبئس المصير راسك كفتوا يا وقرت وقع وحويان صومالي وقال والله يا ناس كحمان يا ناس كحمان ما فهمتين مركا waxaan jecelahay aniga hadalka anigu waa iga fikrado aan soo gudbiyay wallahi anigu I don't like anigu cid wallahi ma nabi anigu adeer carabaha san ku koray waliga nin caraba iska aha waliga nin isooranay British Soomaali kaalay ma yihi xagan anigu waxaan jecelahay horumarka ummadda taarko anigu maxayd banahay talabaad aniga waxa ka dhigay maxayd waa qadiyadeyda يا أنا قاعد شيء أنا توا
وهشينا شيغان وهشينا دي wax soo dara de gaaja tiiri waxa ma noo gulidin laba wasiir magacaaw aniga aabihii durbaanka inay qaraacay laakiin ma gulidintii inta wax nasiisin magacaaw ma noo bixisin dadka laga tir badan yahay dadka la haybso dad maalmo magac cusub baan loo eegayay marka ilaahay baa magac inala eegsan loo eeganaysin kullu magac ayuu ilaahay sheegaan li bixi magac taariikhda galay ma indho waxa la oranayaa midgaan waa laga tagay waxa la jiray bariga midgaan baa jannada laga waayay marka waxa soo baxaysa sheegaan baa jannada laga waayay sheegaan ay jannada laga waayay ya aad waan jeclahay ya ma garateen aad iyo aad u mahadsantiin wallahi waan jeclahay anigu Soomaali meeshii adduunka joogto ya waxa la yiraahdaa wallahi anigu yurtaasan jooga ninka saaqa waa isla joognaa ninka ma jeerto waa isla joognaa dad badan baa arkay inuu cadnaan Facebook-yada waan ugu caydaa waana jeclahay waan caawinaya waan taraya eg waa in la kala saaraa qadiyad waxa la yiraahdaa iyo waxa la yiraahdaa nolosha rasmiga aniga Soomaali maanta anigu waxaa ka dhinto adeer magaalada deganahay gabooyo ma joogo xaaskaygu waa ka joogtaa ma fahamti yaa aasaya niman isaaqay aasaya niman ma jeerteena joogo la dheera baa aasaya niman hawiye baa joogo la dheera baa aasaya nimankaas ay qaadaya adeer iyaga igu dhow dadka cadcad marka waa inay Soomaalimadu saa aniga ay ininka inaga dhanacsanaata qadiyadina oo ka hadli karna xuquuqdina oo ka hadli karna inuu aan iscaay inuu aan isla fargaadin laakiin waan ogaataa luqad baa ina haysata kalar baa ina haya diin baa ina haysata inaka cid ka iska dhow maanta haddii dhibaato kugu timaado ninka Soomaaliga ayaa kugu dhow aad iyo aad ma mahadsantihiin habeen waay maanta xaaskayga maqlo waxaas iska baashaal ma gartay ya shaaric baa la siixiyay gidaar baa laga lahaa ya xamdi waa la buudi xamdiyey waa inoo tahay wallahi shaaric kaliya guriga iska fadhiya marka waxaa la habeen wanaagsan kulligiin insha Allah aad iyo aad ma mahadsantihiin waa inoo waqti kale insha Allah